waxaa marka laga maarmaan ah inay reegada isku diyaariyaan horumarinta iyo barwaaqeynta iyo geedi socodka iyo dowladnimada iyo sharaf soo celinta iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed inay lambar 1 ka noqdaan oo arrintaas ay ka ah ay diyaar u noqdaan waxaan idin ballan qaadayaa arrintaas ayada haddii aan la saaka dhigihiina idin kugu shubayaa inay dhab tahay lagana shaqeynayo haddii aan la in gado ay ka dhacdo lagu sameeyo maamul dowladda Soomaaliya ay dhisto oo mas'uul ka tahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo reer Jubbaland ahna wixii uga dhex maqnaa oo ka dhaxlo madaxda Soomaaliyeed ay u fahanto in masiirkooda uu shacabka gacantiisa ku jiro oo qof gacantiisa ku jirin arrintaas qodob ay ahayd qodob kale waxay ahayd heshiis siyaasadeed oo caalamka lala heshiiyo oo madaxweynuhu halkiisii uu sameeyay ay ahayd Soomaaliya heshiis dunida heshiis la ah inuu ka shaqeeyo arrintaas madaxweynuhu saan wada ognahay caalamka in badan oo kamid ah hadda colaado badan oo jiri jiray ama Afrikaan ha ahaadaan ama caalamka kale ha ahaadeen waa laga heshiiyay oo in badan oo kamid ah meel wanaagsan bay wax soo dhigay waxaa kaloo la aaday horumar dalkii Soomaaliya ah oo inda yaxkameeyo la sameeyo in maxaan ku raahday shidaal la soo bixiyo oo tijaabintiisii iyo raadintiisii iyo baaritaankiisii la dhameystiray oo aan isleenahay hadii sida ayada ay u dhaqanqasho Soomaaliya waxaa lagu noolaan doonaa hadii alla idmo dalalka horumaray ama dhaqaalaha leh oo wanaagsan howlahaas way socdeen waxaa kaloo jiray heshiis siyaasadeed oo madaxda Soomaaliya oo dowlad goboleedyada dalka ka jiray markii Puntland laga saaro ay ku wada jireen oo ah intii doorasho laga gaaray dadka shacabka gudaha gacantiisa la geliyo madaxdaas in si isfahan oo siyaasadeed iyadoo wali waqtigooda u dhamaaday ay ku joogaan arrinteeda ahayd Axmed Maxamed Islaam baa ka baxay waa ogeedeen oo ka tagay waqti badan marka waxaa jiray dowlado caalamka ama dowladaha aan dariska nahay ahaadaan ama kuwa kale ahaadaan barnaamij dhexdhexaadin ah ama wada hadal ah oo ay wadeen oo Axmed Maxamed Islaam inuu dib ugu soo noqdo madashii ah baa jiray arrintaas dabcan dadna waa rabeen dadna ma rabin oo Axmed soo u baxay oo u tagay inuu ummadda Soomaaliyeed ugu soo noqdo Jubbaland cusub oo ummadda Soomaaliyeed ay wada leeyihiin oo midnimada dalka Soomaaliya ka shaqeyso oo horumarka dadka ka shaqeyso oo dowladnimada dalka aaminsan in ay ku shaqo guriyihiin waxa hay dowladda dhexe ee dalku maamusho barnaamijkaas dadna ay rabeen wadahadalka isaga ahaa madaxweynuhu waxa ogtihiin saddexdii maalin hadda la soo dhaafay wuxuu safar ku tagay magaalada Kismaayo safarkaas dad badan oo u arkahayay in uusan Axmed marna dana ummadda Soomaaliyeed ay leedahay iyo wada jir iyo dalka inuu isku soo noqdo iyo in horumar la aado iyo inay dowladnimadu shaqeyso inuusan aqbalaynin dad badan Soomaaliyeed baa aaminsanaa dadna waxay aaminsanaayeen inuu Axmed aamini doono qaadan doono ka soo noqon doono wadadii uu aaday u soo noqon doono dowladnimada dadna saas ay aaminsanaayeen labadaas fikri baa marka inta badan ishaysay shir Kismaayo wuxuu ku soo laabtay oo aan wada aragnay dabcan hadee qof kasta waa xogaal oo maanta nool qofku wuxuu xogaal ahayn inta uu jif hadduu soo tooso qof kasta oo Soomaali ah ama caalamka ku nool maanta qofka hadduu soo tooso caalamka meesha uu ku nool yahay meesha ugu sheeso wixii ka dhacay xogaal buu ka yahay wixii markii Kismaayo ka soo dhacay in shirkaas wuxuu ku soo dhamaaday iyo wada hadalkiisii dabcan dadku qofka kale waa ka dhiga badan yahay xogaal baa laga yahay arrintaas marka hadday saas u dhacday Jubbaland saddex gobol waa Jubbada Dhexe shabaab baa haysto waa Gado anaka hadda aan joogno bulaha maanta aan ku noolnahay oo shabaabka waaga noogu bariyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu badbaadiyay iyo Jubbada Hoose Axmed Maxamed Islaam baa joogo dowladnimadii waa diiday ciidamada waa haystaa dowladda Soomaaliyeed oo kula diriray dhalinyaro Soomaaliyeed oo xuduudda loo geeyay in ay xiriyo amisom ciidamada ka guureen ama admisaha ay ka guureen oo waqti dheer ay deganaayeen oo shacabka Soomaaliyeed amnigooda ka shaqeynayay markii yiraahdeen waqtiga anaka waa naga dhamaaday waa guureynaa dowladda Soomaaliya ee ciidamo geysay Axmed waa la diriray oo ciidamo oo shabaab dhex mariyay
iyo kuwa uu badmariyay inta uu kula diriray ciidamada Soomaaliyeedna meeshaas wixii ka dhacay xogaal ba ka wada hadeen asaga haysta marka haddii marka jubbada hoosena axmedow dowladda diiday uu haysto jubbadii dhaxana ay shabaab haystaan geed waxaan u malaynayaa shabaab way ka joogaan duur laakiin magaalo kama joogaan magaalooyinka waxaa ku nool dadka shacabka ahaa oo Soomaaliyeed oo qaybihiisa kala duwanaa leh iyo ciidamada dowladda Soomaaliya waxaa marka laga maarmaan ah inay reegada isku diyaariyaan horumarinta iyo barwaaqeynta iyo geedi socodka iyo dowladnimada iyo sharaf soo celinta iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed inay lambar 1 ka noqdaan arrintaas ay ka ah ay diyaar u noqdaan waxaan idin ballan qaadayaa arrintaas ayada haddii aan la shaaki dhigihiina idin kugu shubayaa inay dhab tahay lagana shaqeynayo haddii aan la in gado ay ka dhacdo lagu sameeyo maamul dowladda Soomaaliya ay dhisto oo mas'uul ka tahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo reer Jubbaland ahna wixii uga dhex maqnaa oo ka dhaxlo cadaalad u dhismato ummadda Soomaaliyeedna ka shaqeeya danahooda isla markaas ayada aan dowlad gaar u taag ah ama dowladda shisheeye danahooda ka shaqeynaya midna aan noqonin ay noqdaan dowlad ka shaqeynayso maamulkaas uu noqdo maamul ka shaqeynayo danaha ummadda Soomaaliyeed kuna xiran xamar aan ku xirnayn caasimada kale oo dalka ay leeyihiin markii laga soo tago darisnimada iyo wada shaqeynta iyo dib wax isku darka dadka bilaadanka ah darisnimada Ilaahay baa dooray qofna ma doorto anaka Itoobiya inaan daris ahaano Ilaahay soo Djibouti Ilaahay baa dooray anagu ma dooran waxa markii kala deeqo in darisnimo qofka kale wixii markaas ayada kala jiro oo ka qoseeya inuu kala shaqeeyo laakiin dalal baan kala leenahay Djibouti iyo Itoobiya iyo Kenya Soomaaliya waxaduudan caasimadda Soomaaliya ay tahay Muqdisho taasna laakiin dad badan oo Soomaaliyeed bay iskaga qaldantay ama iskaga darmatay caasimadda inay Addis Ababa tahay inay Nairobi tahay inay Muqdisho tahay Ilaahay waxaan leeyahay marka maamulka dhismi doono wuxuu noqon doonaa maamul biidillaahi tacaala og caasimadiisa inay Muqdisho tahay og madaxweynihiisa inuu madaxweyne Axmed uu yahay Xasan Sheekh Maxamuud og inay dowladdiisa dowlad federaal tahay og inuu waxa uu ka shaqeynayo masiirada uu gaarayo aysan ku jirin wax dalka ka baxsan oo dowladda heshiis lala soo galo iyo xaduudo intaba ay dowladda dhexe ay leedahay mas'uuliyadeeda kana shaqeeyo danaha ummadda Soomaaliyeed kana shaqeeyo wax kasta oo horumar keeni karo oo ummadda Soomaaliyeed danaheeda iyo dowladnimadeedii iyo calankii sharafta badnaa ee gabdhaha gacanta noogu hayaan iyo ragba hadda dib u soo nooleeyo wuxuu ahaan jiray oo Soomaaliya ka dhaxaan jiray walow hadda Ilaahay fadligiisa ognahay in badan oo kamid ah sanadba sanadka ka dambeeyay dowladnimada Soomaaliya inay meel wanaagsan si istaagayso laakiin lugooyo iyo dowladaabiyo iyo khilaaf iyo hagardaamiyo ay shisheeye la kuleeyihiin in badan oo kamid ah ay jiraan laakiin laga gudbi doono biidillaahi tacaala arrintaas marka inay reegado gaar ahaan reer Jubbaland guud ahaan reer Jubbaland gaar ahaan reegado inay isku diyaariyaan inay martigeliyaan soo dhaweeyaan guryaha uga baxaan gobasho uga kacaan baabuurkooda ku caawiyaan dhismaha iyo horumarka Jubbaland Ilaahay idinkiisa loo dhan yahay oo ummadda Soomaaliyeed ay wada leedahay barnaamijkaas marka insha Allah Raxmaan waana dhici doonaa Ilaahay idinkiisa waana iman doonaa dadka loogu iman doono oo gobashooda lagu fariisan doono waxay noqon doonaa reegado arrintaas waxaan rajeynayaa marka reegado insha Allah tacaala oo loo gobolka gado uu kamid yahay gobolada ummadda Soomaaliyeed in badan oo kamid ah ay wada degan tahay حجر وحوق ولا ما هراني حجر وحوق أنا ما صدق إدري قبلها أورك حاول كأنه مسيحين وعميمة قفكو كلام كيسة iyo inteerto uu leeyahay oo qof bilaadinta waa daciif asalahan in si daacadnimo ah oo umadiisa ugu shaqeeyo dowladnimadiisa ugu shaqeeyo dalkiisa oo la jecel u leeyahay intaas waxay ku saleysnayd in badan oo kamid ah heestii awanka Soomaaliyeed oo alifay
ama garaadka abwanka Soomaaliyeed oo alifay gabadhan hadda inoo qaadeen taas asala insha Allah Rahmaan waxa la ummadda Soomaaliyeed inay ka wada shaqeysan dhamaanna askari iyo shacabba oday iyo culimo gabar iyo hooyo waxa waayo oo lagu gaari karaa midnimo in ummadda Soomaaliyeed loo wada shaqeeyo intaas waxaan rabaa insha Allah Rahmaan barnaamijkaas